السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كيني محي كل تهي مليدي صاحب وحكستا يقانا ووحكستا مركا لويديو إلى هوان قرانيا هدا عدورد لويديو أما قف حانوسانا يهدو أركو داختربو نقضا وحانون كستا دويديس أيو قرانيا هدي مشكلة أي تمادو وكي مشكلة حلناي يحل كستا مشكلة كستا حلو هيا هدي نقطنا دينتا وداد بو نقضا oo fatwo buu ka soo bixinaya wax kasta ama qadiyad kasta diinta ku saabsan haddii siyaasadda ay timaadana waa ninka xisbiyada kala garanaya ee siyaasadii kala garanaya ee wax kastoo siyaasadda ku saabsan fikirka dhiibaya ka waran noocaas dadka qofka markasta ku odhanaya wax kasta waan garanaya talow maceebba inaad tiraahid wax aanan garanayn ma garanayo haddaad tiraahid ma garanayo ma qiimahaaga ay hoos u dejinaysaa ma ogtahay inaad tidhaahid wax aanad garanayn ma garanayo taas waxay ku kordhinaysaa qiimo oo waxay dadka tusaysaa inaad bin aadam tahay iyo qof nadiif oo sharaf leh iyo qof awood leh oo dadka aan been u sheegaynin haddii malaa'igtii ilaahay uu abuuray ay ilaaheen markuu weydiiyey magacyada makhluuqaad kownka jirta iyo dhulka jirta markuu weydiiyey magacyadooda ay garan waayeen ayaa ilaahay waxay ku ilaaheen bismillaahi raxmaani raxiim subxaanaka laa cilma lanaa ilaa maa callamtanaa sadaqa allahu alcadiim waxay idhaaheen ilaahu awood uma lihin inaan garanno wax adigu aanadna barin nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo khayrul bashar oo ilaahay u doortay inuu noqdo khaatim al-anbiyaa iyo sayid al-mursaliin ayaa calayhi salaatu wasalaam kama xishoonayn inuu yidhaah waxaanu garanayn ma garanayo taas uu saxaabadiisa uu tusaayey inuu qofku uu qirto ama uu yaqiin u yeesho inuu kamaalka ama ilaahay inuu dhammaystiran yahay oo bini aadam aan nahay oo wax badan ay naga maqan tahay oo aqoonteenu ay gaaban tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam ee saxaabadu mar waxay weydiiyeen yaa rasuul allah ayul biqaaci khayr markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu jawaabay ma garanayo ama laa aclam waxay weydiiyeen ku idhaaheen yaa rasuulallah buqcadda ugu khayrka badan adduunka ama dhulka waxalkee wuxuu ku idhi ma garanayo nebiga calayhi salaatu wasalaam mar kale isagoo saxaabadda la fadhiya ayaa wuxuu idhi wallahi laa adri in kaana dulqarnayni nabiyan aw rajulan saalixan wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma garanayo hadduu dulqarnayn uu yahay nebi ama rajul saalixa inaanad waxba garanaynin ama inaad tidhaahid waxaan ma garanayo taas waxay tusaysaa dadka inaad tahay qof runta sheega oo aana khaa'inimada iyo beenta aana garanaynin inaad ka baqdid ama ka khashaaftid inaad tidhaahid ma garanayo wax lagu weydiiyo aanad garanaynin taasu waxay tusaysaa inay kalsoonidaada ama kalsoonida naftaada inay wax u dhammaystiran tahay inaad tidhaahid waxaanad cilmi u lahayn cilmi uma lihi ama waxa aanad garanayn ma garanayo taas dadka waxay tusaysaa inaad naftaada aad ugu kalsoon tahay oo aad ku kalsoon tahay awooddaada iyo cilmigaaga taas waxay dadka tusaysaa inaad tahay qof runta markasta sheego oo aana khaa'in ahayn taas waxay dadka tusaysaa inaad tahay qof naftiisa ixtiraama iyo caqligiisa iyo caqliga dadka kale ixtiraama inaad tahay haddaba ha ka xishoonin inaad tidhaahid waxa aanad garanayn ma garanayo sababtu waxa weeyaan dadku kugu ixtiraamayaan taas maxay idinkan idinla tahay waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu